markuu bisoolad ila soo baxay kadib waa ugu garaacay ninka kala gaariga wari drobolku ka ahaay ayaa markaas waqtigaas dhaxdeena taagnay barti aan joogay oo waqtigaas oo ugu yimid aan iskala soo dhaqaaqnay inta laamiga baawurka kale oo meesha processka baawurta lagu baarayay yeelay intaan soo gaarin baawurkii aba ka soo hormaray waa celshay baawurka drobolkan waa ku qeershay waxaan dhahay dib u noqo tag positionka oo hay'atay aad taagnay tagaa dhahay kadib markuu tagay gaari kala soo galay gaari kale oo cada soo galay gaarigaas kale markuu soo galay waa ka diray meesha waxaan dhahay wadadan mamariistaan dhahay baawurta looma ogolo aniga askarigan markii baawurkaas aan diray kadib baawurkan uu gadaal u noqday aan drobolka hortan oo maqlay oo boorso iyo lacag wax oo markaas yaani oo dib ma lahayn lacagtan ii turtay aan maqlay haddaan maqlay waan aastay gaariga haddaan aastay drobolkiisa soo degay koofni oo aastay aniga gaarigan intaan baaritaankiisa aan la guda gelin oo askarta baari lahayd amba askariga la baari lahaay intaanan u yeerin ka hor inaan xaqiijiyo baawurkan warbixinta ugu siiyay ahayd in eedadiis gaarigan ay saaran tahay xaafadan ay degan tahay haddii intaas aan maqlay asoo yaani lacag iyo boorso wax ka hadlayo waan ku dhawaaday haddaan ku dhawaaday meel geeskiisaan istaagay asagana wuu mashquulsanaay islaanta gaariga saaran oo ku mashquulsanaay wuxuu ku mashquulsanaay taleefankeeda oo gacanta ku haayay taleefankeeda oo gacanta ku haayay jawaabka isdhaafsanayaan arkay taleefanka inuu gacanta ku haayaan aan dareemay oo lacagta geli ma ay doole taleefanka markaas gacana u deysana kaamirada laga arkaa gacana u deystay taleefanka ka qaaday islaanta maamadii aan ku celshay marka aan meesha taaganahay ani asaga ma isla hadleynabo aniga waxa ay dhageystay waxaan dhageysanayaa warka isdhaafsanayaan markii aan dareemay in meeshaan wax laga sheegay idadiis inay tahay islaantan aysan jirin badan ay jirto waxaan dhahnay meeshaan baawur kan laga diimay sidiisoo baawurka naga dhaaftuuna naga galay farasti gaariga markuu soo dhaqaaqayaan celihay in lacagta laga hadlayay boorsada aniga meesha saki ay galay shaqadeedina isgooskaas ay ku egtahay baawurkaas inaan iska diro ee awoodeedu ku egtahay oon dhaho baawurkan naga dir haddii qaali wax sii badato baawurka inaan baakimo kadib aan madaxda markaas aan u yeero amba telefoon aan ka waco amba gacanka aan ka waco sida markaas waqti xaadirkaas munaasib ku tahay baawurka markaan ka soo noqday oo drobolka koofana aan ka xiray kadib waan ka soo dhaqaaqay marka aan ka soo dhaqaaqanin kaana markuu wuxuu yiri awood sheekasho iyo markaas yaani inuu ugu soo wujuhayo awood inuu aaminsan yahay wadadaas wixii marayo asaga awoodiisa inay ku mari karaan asoo ilaa waxa hore aniga diihay ma celi kartaa adiga iyo niyo meeshan shaqa u joognaa shaqadaada ku ekow ha ii soo talaabin aniga shaqadayda u taaganahay wuxuu dhahayay baawurka wala deena ila deemayo adiga ma celi karo yiri muuqaalkan hadii loo raadiyo waleela faro jug ugu siiyay xabadka hadduu jug ugu siiyay anigana sidoo ii siiyaan u siiyay jugan siiyay asagana bisooladu ila soo baxay aftar markuu bisooladu ila soo baxay kadib waa ugu garaacay ninka kala gaariga wari drobolku ka ahaay ayaa markaas waqtigaas dhaxdeena taagnay hadduu ugu garaacay oo asaga xaqiisa yaani hay'atirikan uu sikiyay anigana aan wax uba wadanin gacanka aan ku shaqeynayay oo dhinac ugu jiro waqti xaadirkaas wax uba aan wadanin oo asagana ileeyahay meeshan baawurka laga diiyaa ma celi kartid aniga waa dhaqaaqay waxaan u dhaqaaqay shaqadeeda inaan dhameystirto gaarigaas aan meesha aan ka celsho oo san ii soo gudbinbo maadaama asaga awood uu isticmaalay wixii markaas meesha dhacdada ka dhacdana markaas inaan gudbiyo oo sheego laakiin baawurkaas aan meesha ka wareejiyo hadii la isweydiino meesha kaamiraha ku xirneedbo kadib aniga qoriga soo doontay meeshana waxa ka dhacday 3 baaloota ka dhacday hal baalooto oo ugu soo riday aniga hal baalootaan ku riday baalootada saddexaad marxuumka ku dhintay